أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم haddii aad walaalkay ama walaashay aad tahay qof muslim ah oo wanaaga jecel oo kitaabka quraanka kariimka ah jecel caawa waxaa rabnaa in aad akhriso quraanka isla markaana walaalahaaga kale aad u sheergarayso waayo maxaa yeelay waxaa loo sii gudbayaa tobankii dambe ee ramadaan quraanka kariimka wax ka fadli badan ma lahan in aad quraanka akhriso in aad Allah subhanahu wa ta'ala aad ka baqdo adduunkan waa laga tagaa waxaad tagi doontaa maalin yooma yafirru almar'u min aqi wa ummi wa abi wa sa'ibati wa bani likulli li'miru yawma idhi sha'ni yugni maalintaas maalin ka daran ma jirto waayo maxaa yeelay maanta waxaad haysataa walaal waxaad haysataa ehel waxaad haysataa saaxib waxaad joogtaa adduunka waxaad haysataa fursadii ugu qaalisan ee qof bini aadan ah uu helo adduunkan waxa lagu keeno waxay taa koow inaad ilaahay caabudo laba in aad adduunyada aakhira aad u shaqaysato waayo maxaa yeelay adduunka waa laga tagaa adduunkan aad arkayso waxa soo mara qoomo aad waxa soo mara qoomo nuux waxa soo mara qoomo luud waxa soo mara qoomam kala duwan oo adduunkan soo mara iyagoo waliba cimrigooda qoomka ugu yar uu gaaray 1,000 sano qoomka ugu yar cimrigooda ayaa gaaray 1,000 sano kuwa kalena way ka badnaan qoomo aad waxay ahaayeen qoom dheer oo awoodda ilaahay uu sii darteen ee ilaahay ku kibreen Allah subhanahu wa ta'ala wuu halaay waa ogeeda fircoon markuu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku kibrey markaas ayaa badda lagu qarqiyay oo qoomkiisii la halaay mu'minka adduunka kuma raaxaysto walaalka iyo walaashay waxa ku leeyahay innamal a'maalu binniyat a'maashu wa niyo ittaqullaha haythama kuntum war ilaahay كعبسده ميل والبا aad joogtaan munkarka ka fogaada xumaanta ka fogaada faqsiga ka fogaada zinada ka fogaada noloshaada ka taxadir si aad maalinta aakhira aad ugu gudubto walaalkay waxa ku leeyahay waad ogeyd adduunka maalintii la bilaabay ilaa ilaana waxa soo mar qooman kala duwan waxa soo maray nabiyaal kala duwan waxa soo maray rasuuliyaal kala duwan marka waxaan ku leeyahay adigana maanta waa maalintaada fursad ayaad haysataa maanta waxaad fursad u haysataa janno iyo naar inaad shaqaysato maanta waxaa fursad u haystaa Allah subhanahu wa ta'ala in aad afis weydiisato faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah subhanahu wa ta'ala waa mid mar walba dambi dhaafkiisa uu badaya waa mid mar walba ibn aadamkiisa jecel waa mid mar walba kula jecel in aad adiga ajirka iyo xasanaadda aad shaqaysato walaalkayga muslimka waxa la tahay xilligii aad baxsan lahayd sadaqada waxa la tahay xilligii aad caawilad walaalka waxa la tahay xilligii baalinta qiyaama aad ka fikiri leed halka maanta anagana aan u jeedno hebel iyo heblaayo faasiqnimo dulmi isku dir iyo dulli oo aan waxba taraynin waxaan ku leeyahay inta aad sidaas ku jiri lahayd walaalka iyo walaashay waxa ku leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabso maalinta aakhira inay jirto ogow ilaahay hadii aad rumaysantahay wanaaga walaalkaaga gaarsi mar walbana ka shaqay wanaaga waxa arkaysaa hooyo waayeel ah oo maanta tugsanaysa maanta waxa loo baahnaa dadkaas masaakiibaka ay barakacyaasha ku jiro magaalada muqdisho ku nool in la garab istaago in la saacido in sadaqada fadhigooda loo geeyo in laga farxiyo maadaama bishii ramadaanka lagu jiro ugu dabeen umada Soomaali dal iyo dibadda beel walba ay jirto waxa la qof walba oo wanaaga jecel qof walba oo khayrka jecel Allah subhanahu wa ta'ala wax walba waxa uu ku dhameystiro quraanka dastuurka islaamka waa kitaabka quraanka kariimka marka waxa idin sheegayna in aad mar walba aad ka shaqaysaa wanaaga mar walba aad khayrka ka shaqayso aadan is dulminin qabiil waxba ma taraayo ilaahay subhanahu wa ta'ala qabiilka waxa uu ku yiri li ta'arafu isku aqoonsada laakiin maanta idinka waxa aad ka dhigteen li taqatalu waa isku dishaan marka waxa idin sheegayna in dhabaatiin الله استغفار تلوي ديستو الله دبي داف كلوي ديستو وصاحب كير عطو شر كابر باجدودو دردر ايا دغالا سوتين هدي شد اي توبك هور اي كو دافتay oo aad quraanka akhrisaneen caawa bilaw inaad akhriso quraanka kariimka Allah subhanahu wa ta'ala dibid afidis